waa tahay daawadayaal waxaa haatan dukaanka Muna Beauty Cosmetics soo booqday maanta fanaankeena weyn Nimcaan Hilaac iyo xildhibaanadeena Hodan Xasan waxaan kaga hor imi iridda aniga oo dhex jooga dukaanka waxaanan ku leeyahay labadiinaba ku soo dhawaada Muna Beauty Cosmetics Muna waatan gabadha dukaankan iskale oo iyadu noo asaastay isla markaana dadka Soomaaliyeed ugu bishaareynaysa inay u sameeyay meel dadka lagu qurxiyo waana alaab laga sameeyay waxyaabaha dabiiciga ah wax kiimika ah kuma jiraan waxaad ka dheehan kartaan halka waxa ku dhagan shahaadooyinka ay ku baastay oo FDA-da iyo xarumihii caafimaadka ee soo baaray waana dukaankii ugu horreeyay qof Soomaali uu yeesho aan wax kiimika ah alaabtiisa aan ku jirin laakiin loogu talagalay in lagu takargareeyo maqaarka waana rag iyo haween marka soo dhawaada idinkoo maanta aan idinku casuunay inaad indhaysaan ganacsatadeenna inaan garab istaagno aad baan idinku mahadcelinayaa inaad soo booqateen Muna Beauty Cosmetics gudaha u gudba indhihiina ayaa idin macalina aad baan horta kugu mahadcelinaynaa waan ku faraxsanahay booqashada Muna Beauty Cosmetics markii Muna ay kugu wareejisay dukaanka maxaa ku soo baxay horta marka hore waan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaada marka xiga waxaan ku faraxsanahay inaan imaado dukaankan Muna xaqiiqatan inaan dhiiri gelino oo garab galno oo waxa weeye dala taabantaabyo bulshada waxa weeyaan iyada hadba inta wax isku isfahantan ba isku ehelay ma socotaa anigu ka fanaanin ahaan ama dadka magaca leh badana goobaha ganacsiga maanu iima jirin waa ii kooborta goob ganacsi inta soo galo aan ka faaloodo xaaladeeda iyo waxa dhex yaala iyo waxa ay ku salaysan tahay waayo awal de masrax iyo waxaan ku jirnaa iyo hawlo kale marka Muna waan hambalyeynaya shaqo culus baad haysaa kulli bulshada Soomaaliyeedna faa'iido iyo waxtar ay u leedahay hadda qaabka xunutiisa aad baan uga helay agabka aad hayso darageedu dumar loo baahnaa boos fiican baad naga soo baxday waan ku hambalyeynaya bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Muna wal baahnaa weyn inoo baahan tahay aad baad u maasan tahay Nimcaan Hodan isku soo wada duub dukaankan waad aragtay maxaa ku baxay horta cawilo waa mahadsantahay inaad maanta meesha nagu soo dhaweysay walaasheen Muna way mahadsantahay aniga farxad bay ii tahay inaan gabar Soomaaliyeed garab istaago farxad bay ii tahay gabar walaashay ah oo mataqaanaa hami yeelatay oo damacday inay la tartanto dadka mainstreamka ah ee mataqaanaa aan la deganahay oo Southdale Mall oo ogtihiin yani inuu mainstream mall yahay dukaanka furatay inaan taageero oo garab istaago waxaan aad ugu baraarujinayaa dadka inay gabadha taageeraan qofku markuu business cusub furto oo waliba business small business uu yahay usan ahayn dukaamada waaweyn oo kaleeto sanadka ugu horeeyay 2 sano ugu horeysa waa iska dhib badan aad u dhib badan yahay marka dadkan aad ugu baraarujinaya in loo yimaado in la taageero in wax laga iibsado in mataqaana social media lagu share gareeyo farxad weyn bay noo tahay moolkan inay gabar Soomaaliyeed hadda joogto dadka kalena waxaan ku baraarujinaynaa yani halaga baxo meelaha yaryariiska la joogay mainstream mallka hala soo galo meelahan oo kale hala yimaado meelo ka sii waaweyn abaayana waxaan rajaynaynaa inay all 50 states dukaamo ka furato ay magaceena hore u sii wado because iyada meeshay gaarto kulligeen waan wada gaarnay inta waxa ii dheer waxa tir anu gabdhahan taageerayo waa sax adiga waa gabar ah adigana arinta waa isku raacsanahay laakiin Muna dukaankeeda waxay ugu talagashay rag iyo haween halka ay haweenka kale ee ganacsada ay dumarka kale ugu talagaleen arintaas jamaca ah ee rag iyo haweenba dukaankan inay iska qurxiyaan maqaarkooda ka qurxiyaan jirkooda ka qurxiyaan sida aragtaa wallahi arintaas aad baa uga mahadcelinayaa because waa dhibaato hadii gabdhihiin is qurxiyaan wiilasha is qurxin waayaan so in gabdhihii wiilasha la qurxiyo waa arin nagu cusub hadda laakiin waa arin aad soo dhaweynayno dumarka Soomaaliyeed I think inay taas aad u soo dhaweynayaan waa tahay daawadayaal gabadha iskale dukaankan Muna Beauty ayaan bal waxa aan weydiin doonaa iyadana sida uu dareenkeedu yahay maadaama ay soo booqdeen maanta dad caanka ah gobolka Minnesota iyo guud ahaan geeyiga Soomaaliyeed Muna maanta waxa ku soo booqday Nimcaan Hilaac oo de Soomaalida markay ay dhahayaan qofkaas lama arko waxaan waa Harmas iyo xildhibaan Hodan oo iyada de aad mashquul u ah xilligan hadda lagu jiro oo iyadana waliba aan week dhan baan ku hadlay Hodan Soomaaliyeed Allah waa inaad noo timaado insha Allah sidee u aragtaa dareenkaagu sidee wala lama soo koobi karo sidaan dareemayo waayo labadoodaba zaid baa u sugayay inay noo imaadaan de waa taqaan qof dhan oo caan ah oo adiga kaamid oo Soomaaliya walaalka oo mar walba qof walba business furta ama meel special occasions ay mar walba looga yeerto so helitaanka helayo ay ogolaadeen inay imaadaan baa wax dhan so waan ku faraxsanahay 100% way dadka Soomaalida ka daawanaya maanta halkan maxaa rabtaa inaad fariin u dirto fariinta always waa hal
meel walba aan wada joogno qof walba wuu imaadaa marka koowaad iyo marka labaad ba soo dhawaada baan dhahayaa meel walba joogaan anigana insha Allah businesskan iyo business ka badan meel walba joogaan waa ugu geenayaa maadaama dhinaca qurxinta aan u xil qaatay mahado igraal noqo waa tukaamaysanaysa waa arkayay laakiin waxaan ka soconaa Somali Media Somali TV baan marka sida u aragtaa dukaankan alaabta aad ka iibsanaysa maanta dukaankan dukaan fiican waaye alaab fiican ay haystaan mar walba oo soo laabtaa bil walba marka ay dhamaato sida new product oo u gato waaya inta badan dadku waxay ka cabsadaan kiimiko markay arkaan producti noocan oo kala ama creamya waxay dhahaan waxna yeeshaa way ka baqaan maadaama aad horena u isticmaashay maantana aad dib ugu soo noqotay caafimaad ahaan ka war product kaneta caafimaadkeeda saaid buu u fiican yahay awalka horeeto Macy's email kale baa kasoo gada jiray laakiin inta uu soo bedeshtay alaabta inta chemical ma lahan productka nabro ma ka soo bixinayaan maxaato skinkaada maqaarkaada dry saaid qalal ma ka dhigayaan so product fiican waa nabraha dhan waa iga baaba'een waxyaalaha ay dhibi jireen awalka horeeto iyo waxa wajiga gubay dhan waa iga bixiyeen so fiican yahay saaid oo ugu shaqeeyaa waaya gabdhaha Soomaaliyeed ee halkan ka daawanaya maxaa rabtaa inaad u sheegto Soomaali hadaan ahnay anaka muhiim waay inta wajigeena aabarano oo skinkeena aabarano dadka cadaanka waxay isticmaalaan Macy's clinic ee awalkor isticmaalo jiray ma yaqaanaan anaka jirkeena iyo skinkeena marka way fiican tahay in muhiim waaye inta wajigaada baratid iyo jirkaada abaratid sida u fahantid waxa ay ku fiican iyo waxa vegan-ka oo chemical-ka ku jirin anaka ma nolo barahada oo Soomaalina gabdhaha daanahanay soo sida fiican waa inta sticker graysid waaya dukaan noocan marka la arko dadka waxay u maleynayaan gabdho kaliya in loo furay laakiin sidee muna noo sheegtay waxa ku jira ragga waan ogtahay ragga inta badan meelaha way ka cabsadaan ma imaadaan xataa markay dad u soo dirsanayaan gabar ay soo dirayaan maadaama lagu soo daray producti ama alaab ay ragguna isticmaali karaan oo kareemyada iyo body wash kamid ah maxaa rabtaa inaad tiraahdo ragga Soomaaliyeed ayagana alaabtaanito wiil walaalka iga yarba ani xataa u gadaa uu ka xishooda intuu imaado dukaan gabdheed waaye laakiin uu u maleynaya dukaan gabdheed intuu yahay laakiin ma ahan nabrihiis hadda wajiga wuu ka baaba'ay wajigiisa si fiican buu ku soo laabtay markii dumar iyo nimanka ma kala lahaan maxay tahay marka caafimaadka oo la dhaho wajigaada iyo tintaada iyo jirkaada dhan qof walba intuu istaker gareeyo waaye marka waxa kula tali lahay qof walba oo nabro oo maxay tahay problem ku qabo ama wajigiisa dhibaato ku qabo intuu imaado oo la caawiyo si fiican magaca Jamila assalamu alaykum alaykum salaam Jamila maanta halkan waxa u timi inaad wax ka iibsatid Soomaa yes why is this your first time No, this actually isn't my first time. This is like my third or fourth time here. But even every time that I come here, like the first time I came here, Muna had like just skin products and stuff. But like this is like my fourth, fifth time, and now I'm seeing stuff like lotions and like beard oils and stuff for your hair and body, which is really nice. You know, Muna's constantly expanding with different things, and you know all her products, you know, have no bad. You know, stuff that's like that can cause cancer, stuff that can cause diseases or anything. Everything is natural, everything is halal, which is the most important thing. Okay, what do you want to tell the people who is watching right now? Honestly, support Muna. She's a black Muslim woman trying to do her thing. Like, why don't you support her? And like, she's also Somali. That's your dad, you know. You should support your people. And she's doing business as halal, you know. In this generation, everyone's trying to make, especially during inflation, everyone's doing all this haram stuff to make money. But she's trying to do halal business, you know. And this stuff is not like it's fake, you know. It's gonna benefit you too. You benefit Muna, she's benefiting you too, you know. And it's unisex, so men, they can come too. Like, just because this is like pink or yellow, don't be afraid. It's gonna work for your skin too, you know. They even have like, she has like recently she did a beard oil. So if you have like you're trying to grow a beard or something, you know, she can help you with that. Or like if you have a bidar, she can help you with that too. Everything is good, you know. Everything is good. And the people who have a skin problem, what do you want to tell? Muna has different types of things. She has stuff for like dry skin or like oily skin or combination. I think sometimes my skin can be oily or like it can be dry. She has like creams. She has like day creams, night creams. She has stuff for like washing your face for different types of skin and everything. Magacaada Maymuna. Muna? Maymuna. Muna isku dhowdihiin magaciina. Tuklas way adeer. Maanta halkan waxa u timid tukaamaysi Soomaa inaad ka iibsatid. Yes. Ma markii kugu horeysaa? No, this is actually my third time. Okay, waxaad noo sheegtaa productigan ama alaabtan meesha taalla oo alaab cinkay ah waa sidee?
So far, wallahi, mashallah, like I love what Muna's doing. Her product is organic, it's natural, it's just, you see results right away. It's one of the best products that I've seen. I'm very skeptic about what I put on, especially on my face. So like, it's important to me that wax walba on jirkayga marinaya inuu natural u yahay, that's chemical free, and I love the fact that Mona Beauty Cosmetics is chemical free, FDA approved, and it's not harmful to your body, and that's very important to me because Okay, what makes you to come back here? the customer service. Mona Beauty Cosmetics store is the experience that you'll have here is one of a kind, because just the way she approached every customer, she takes her time with you to get to know you, that your body type, if you're oily, if you're, you know, like, she wants to make sure like the products, it's not about just making a sale, it's about getting to know her customers, it's about customizing each product to each unique individual, and I love that about it, and that's why I keep coming back, because every time she has new products I want to come and try it out, because I've loved the results that I've seen with the first few products that I've tried. wadayaal waxaan wali ku dhex suganahay Mona Beauty Cosmetics. Waxaan si tartiib ula kulmayaa dadka maanta u yimi inay ka tukaamaystaan. Hadda dhinacayga midig waxaa taagan gabar yar oo iyadana Soomaaliyeed oo ka tukaamaysanaysa. Magaca? Xanaana leedahay. Maanta waxaa ku sugan tahay Mona Beauty. Maxaa u timaaday? Waxaan u imaaday darta her products waxay haystaan wax aad u anfaco jirka, wax oo Somali community-ga usually wax chemical ku badan isticmaalaan, laakiin ayada waa qof Soomaali oo isticmaalayso and she's selling and promoting products oo aad iyo aad jirka u anfacayo oo natural ingredients ku jiro oo fahmayna anaga xataa. Waayahay adiga gaxnaan ahaan gaar ahaan maxaa isticmaashaa? Mid baa gacanta ku haysaa. Muxuu yahay ka gacanta ku hayso? Her dark spots cream is my favorite because marka akhriye it has all these natural ingredients like jojoba oil and olive oil, and usually marka fiirino wax cadaynaya the dark spot, it has a lot of chemicals and damage ku sameynaya, lakin all the models for her advertising and dadka soo galo way jecelihiin because it's very healthy and we care about the health of our skin. dareenkaagu sidee yahay, sidee soo aragtay, maxaad rabtaa inaad tiraahdo dadkii maanta ku yimi? maasha Allah waa mahadsantahay markoodi marka labaadba adiga naftarkaada waqtigaana la qaadatay maanta taa marka laga soo gudbo dadka customer-ka ah zaid ay u mahadsan yihiin in badan iyagoo waqti galiyeen inay waqtigoodu u ahaa inay shopping gareystaan badna ogolaadeen inay hal iyo labo eray ay ka dhahaan siday dukaankanaga ugu soo laabteen alaabtanada u jeclaadeen way ku mahadsan yihiin mar walba. And of course nimcaan iyo abaayo labadooda wan soo booqdeen zaid ay u mahadsan yihiin 100% waan sugeyn inay noo imaadaan maantana way noo imaadeen soo mar walba way mahadsan yihiin mar walbana insha Allah waan sugeynaa inay nagu soo laabtaan. aad u mahadsantahay daawadayaal, taasi waxay ahayd gabadha iskale dukaanka ama mulkiilaha Mona Beauty Cosmetics oo ku yaala 1930 South Central Idina Minnesota. Mona Beauty Cosmetics waxaan ku dooranay kareemyo dabiici ah oo u fiican caafimaadka maqaarka, kuwaas oo si huban u ifiya bilicda midabkeena. bal tijaabi sida ay caafimaadkeena ugu fiican yihiin kareemyada Mona Beauty Cosmetics isla markaana aysan u lahayn saameyn xun. Mona Beauty Cosmetics waa xanaanaynta maqaarkeena iyo badbaadada bilicdeena ee la noqo saaxiibka koobaad ee Mona Beauty Cosmetics. natiijooyin caafimaad oo lagu sameeyay kareemyada Mona Beauty Cosmetics ayaa cadeeyay in kareemyada la hubo in ka badan 100%. cilmi baarisyo sidoo kale lagu sameeyay ayaa iyaguna dhahaya waaba halka nadaafadda, nafaqada iyo waliba caafimaadka jirka, waana xaragada nolosha. Mona Beauty Cosmetics waana muhiim in aad mar kastaba u muuqato qof da'yar, bilicsan, ifaya, nuuraya. Mona Beauty Cosmetics kareemyada Mona Beauty Cosmetics waxa ay soo mareen hubin buuxda oo dhanka tayada ah, waana dabiici, aanan lahayn wax kiimika ah. Mona Beauty Cosmetics la noqo saaxiibka ugu dhow. dukaanka Mona Beauty Cosmetics wuxuu ku yaalaa waddanka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, waxaana maal gashatay gabadh Soomaaliyeed oo gabdhaha Soomaaliyeed ugu tala gashay bilic iyo qurux iyo waliba dhaldhalaal. dukaanka Mona Beauty Cosmetics waxa uu ku yaalaa 1930 Southdale Mall, Idina, MN 55434. Mona Beauty Cosmetics @gmail.na waad kala xiriiri kartaa amaba telefoonka ah 952 681 72 eberleex.
kareemyadani waa kuwo si isku mid ah ula jaanqaadaya hadba cimilada aad ku jirto haddii ay tahay mid qabow iyo sidoo kale mid kulul waxayna sidoo kale yihiin kuwo jidhkaaga guud ahaantiiba u ilaalinaya si dabiiciya ballanteenu waa Muna Beauty Cosmetics kareemyada la hubo ee ay samayso Muna Beauty Cosmetics waxaa xusid mudan inay yihiin kuwo si isku mid ah u isticmaali karaan ragga iyo dumarka qurxi jidhkaaga adiga oo isticmaalaya adeeg kareem oo la hubo